ورحمة الله وبركاته وصاحب يا صباح ونكسن وأنت مالين عربيت وأنت عرب عن فانت مجال عربيت هذا جوتي وأنا عربودا مرة كعرفت إيه ورا وركينا فينا مصانع ور لقي سويا ورو إسكي مانا يا ورو مانا يا ورر وين يا مانا يا وليبا وحيوبا أنت هي كلية أنا ناس سبرتان هي رمزنا سبتان ودناس سمرتان يا قصر علي طبعا تركض الغاز قبلية إن شاء الله هذا صباح ني مركا إن شاء الله أنا قاعد دائي أركتين ترين وأركتين يا ترين كان نكون عينا لكن أنا صعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعين والمشاهدين الكرام. مرحبا بهذه القناة يوتيوب. اسمي عامر محمد. أعيش في دبي في دول الإمارات العربية المتحدة. أنا نائب رئيس الوزراء وحصل اسك كفتن مركان عرب اسك دغينو marka xafiiskan fadhiya muujidin waxbaan rabaa marka inaan idin sheego. waxaa jirto xigmad dhahaysa waxamad af ingiriisi waxay dhahaysaa don't judge the book by its cover. buugga ha ku xugminin yacni muuqaalkiisa ha ku xugmanin. sababtu waxay tahay macnaha dadku waxaa waaye waa indha ku garaadlayaal waxay yacni kaa arkaan keliya kugu qiimeynayaan. hadday arkaan adigoo masaajidka u socda waxay dhahay ninkaan ahlu salaad waaye. hadday arkaan adigoo yacni meelaha kubadda lagu ciyaaro joogo waxaa la dhahay ninkaan ciyaartooy waaye. macnaa mararka qaarkoodna xaqiiqadu way ka fog tahay. qofka ku arkayo adiga dhowr mar wuxuu ku arkaa wadada markaas wuxuu ku dhaaniyo ahlu khayr ta saaxiibo mar walbo aan masaajid ku socdo bisaan ku arkaa. marka ahlu khayr ta nin wanaagsan ta qofka bini aadanka personality-giisa isaga og inuu wanaagsan yahay iyo inuusan wanaagsanin oo ka warqaa. qof bini aadanana ma jirto oo yacni asaga isku maleeyo inuu yahay nin aad u wanaagsan, nin yacni cibaado badan, nin yacni dhan walba ka wanaagsan. qof isku maleeyo isagu ma jirto. isagu wuu ogyahay ciladihiisu, wuu ogyahay xumaantiisu, wuu ogyahay, laakiin dadka xugminaya, dadka dhahay ninkaan nin fiican waaye, ninkaan nin saas waaye, ninkaan nin blas waaye. mararka qaar waxaa laga yaabaa adoo meel fadhiyo oo yacni salaada soo dugtay nin inuu ku imaado uu ku dhaho niyahow waxaa la dhahaa meesha fadhigeeda ma fiicno, ilaaha laga cabsado, salaada hala dukado. horta waana way fiican tahay, laakiin asagu ma sheegi karo, ma yaqaano in yacni adiga aad soo dukatay iyo in kaleetood ma kala yaqaano. marka xigmadaasi marka waxbaa ka jiro. don't judge the book by its cover. qofka ha ku xugminin muuqaalkiisa kore. yacni hadda yacni haddii aan qamiis wato oo aan gar weyn leeyahay macnaheedu ma ahan inaan sheekh ahay. sababtu waxay tahay dad badan oo qamiisyada xirto oo fanaaniina jiro. marka qofka muuqaalkiisa laguma qiimeyn karo. wax walba uu yahay waa niyadiisa. inama alacmaalu waxaa waaye biniyaat waay. marka insha allah ilaahay soonka, salaada, sadaqada hanaga aqbalo. bisha barakeysan ilaahay hanaga dhigo kuwa ka faa'iideysta. laylatul qadriga ilaahay hana waafajiyo.
maalinlaha ah ayaa socdo. Hadda waxay noo tahay waqti dambe ayayna tahay, waqti dambe aan dhihin waxay noo tahay 3 saac habeenimo ayay noo tahay. Weli waxaan joognaa xafiiskaan joognaa. xalay runtii waxaan daawanay ciyaar dhaaftay, ciyaar aan runtii aad ugu qanacnay. inkastoo yacni aan isboortiga aan ka cuslaanay, haddana waxaa waaye weli marka uu qaranka ciyaarayo waa habeen noocaas ah, waa habeen runtii aad iyo aad noogu weyn. sababta waxay tahay qarankeenna waa sharafteena. xalay xilli dambe ahayd waxay soo gelaysay 7 saac habeenimo soo gelaysay ama 1da. markaan shaqada ka tagay oo xaafadda aan tagay ayaan taleefon ka daawaday. wallaahi xalay ciyaar dhaaftay ayay ahayd. halaha 11ka garoonka ku jirtay ilaa kuwa dambe ee gadaal ka soo galay runtii wax ceeb leh kuma jirin. sababta waxay tahay kubadda waxaa lagu ciyaaraa kalsooni iyo teamworkooda waxay ahayd shabakad aad u adag, runtii shabakad aad u adag, difaaceeda adag yahay, fursadaheeda weerarka uu aad u fiican yahay. waxaan arkayay dad badan oo dhaliilaya wiilka watay lambarka 9aad ee gool fursada helay haddana cunay. taasi waa iska caadi, gool waa la helaa waa la cunaa, laakiin ninkaasi shaqo adag ayuu garoonka ka hayay intuu ku jiray. wuxuu sameynayay difaacyada ayuu pressure badan saarayay, mararka qaar kubaduhu isku dayay inuu ka xoogo. ma ogtahay difaacyada naftirkooda waxay u baahan yihiin dad yacni mashquuliyo oo yacni fursadaha ka dhex raadiyo. fursadaha sidii ugu dhex raadinaya hal fursaduu helay, fursadaasi umaysan suurtagelin. laakiin ciyaartaasi bareejada ah waxay ka dhigan tahay guulay ka dhigan tahay marka loo fiiriyo tiimka lala ciyaarayay levelkiisa. kala sarreynta waxay ku jirtaa kaalinta wadankaasi wuxuu ku jiraa kaalinta 8aad, annagana waxaan ku jirnaa 202. waa dareemi kartaa farqiga inoo dhexeeyo. haddana waxaa u ciyaaraya ciyaaryahano aad muhiim u ah, kuwaasoo ka ciyaaro heerarka 1aad ee wadanka Yurub. mid ka mid ah kaalinta 2aad gool-elinta Champions ayuu wadaa, waana lambarka 9aad. runtii waxay ahayd ciyaar dadaalkeeda aad u badan yahay. saaxiibayaal, waxaad ku soo dhawaataan Dubaydii duqda ahayd, Dubayda qadiimiga ahayd. meeshaan waxaa ayaan dhexdiisa ku yaallay ramadaanka hor suuq la dhahayo, waxaa la dhahaa suuq ramadaana la dhahaa. marka hadda way ka qaadeen. meeshaan muujida boorka muujida, boorkan waxaa ku yaallo waagii hore sidii ahaa jirtay. sawiradan hadda waa sawirro hore qadiimi ah. maaragta suuq suu ahaa jiray, imaaraatiyiinta iyagoo dhex socdaan, waxaas dhan waa adiga. marka qaybtan waxaa la dhahaa Old Baladiya. waxaan idinka tusaa boorkan koraa idinka tusaa inay tahay Old Baladiya, baladiyadii hore ee duqda ahayd. meelahan adiga waxyaabaha iska yaalo xagga maxaa ku qoran Old Baladiya Street ku qoran. wadadani subaxdii waxay ka mid tahay wadooyinka ugu dalxiiska ugu badanaa wadadan soo maro, wuxuuna u soo maraa suuqan qadiimiga. inta yacni war iga tagaa